shayna bilowdid ama ganacsi ahaado ama waxbarasho ahaado bilaabitaankaas aad bilowday waa xariga koowaad ee kugu xeendamnay oo aad iska furtay balse bilaabitaankaasi wuxuu macno yeelanayaa kol haddii aad dhamaystir leedahay waxaan aragnaa kumanaan shay in la bilaabayo haddana aysan dhamaystir lahayn shay walba aad bilaabaysid hal lahaado hadafkaasoo ah mid adiga ku cad misna ku muuqda runtaa waxay tahay wax walba aad qabanaysid mustaqbal fog ku lahaado ha ka fikirin maalmaha soo aadan usbuucyada soo aadan bilaha soo aadan laakiin waxaad qabanayso ma yahay mid mustaqbalkaaga noloshaada macal qoyskaaga guud ahaaneed kaan fikira sida doonti u kuf sida doonti u kac waxaad doonti mar balse ma yahay mid kaani aad bilowday mid noloshaada kaan fikira haddii jawaabtaadu haa tahay isku day inaad si wanaagsan aad uga miradhalisid waayo waxaad ogaanaysaa wax walba wanaagsan waxbaa ka soo horjeeda caqabad la'aan ma jirto laakiin inaad bilow yeelatid misana aadan dhamaystir lahayn aad ayuu xanuun badan tahay bilaabitaanka kaliya kuma xirna ganacsiina qabatid shaqo kale aad qabatid xitaa waxaan aragnaa in go'aamo fara badan qaadanaysid soo taa aragtay inaad ku go'aan gaaraysid sometimes adigoo dhahaya waxaan doonayaa inaan maalintii aqriyo jus ama jalaad ama intaad ka gaartid maybe haddii go'aankaagu uusan ahayn mid adag waxaa laga yaabaa inaad weygada wadid kadibna aad ka caajistid bilaawaad leedahay laakiin dhamaystir ma lihid sidoo kale waxaad furaysaa ganacsigaasi waxaad ka soo aragtay qof kale oo saaxiibkaaga ama meel kale kaama ahan ganacsi dhab ah maalmo yar haddaad wadid oo khasaaro yar ama aad la kulantid waxaad leedahay halkan iga ekay ogsoonow shay walbo la qabanayo haddii horeyba wax laga heli lahaa cid maanta halkani joogi lahayd ma aysan jiri lahayn ee waxaa isku soo shugi lahay shaygaasi la qabanayo hor wax laga helay wax walba waxa uu marayaa hardan wax walba waxa uu marayaa dadaal marka adiga dadaalka ka dib dhicin sidoo kale waxaad la socotaan in badankeenu nahay dhalintuna waa xilliga ugu wanaagsan dhalinyaronimadaadu hadda waxba ku qabsan waxaad ogaataa in weynaantaadu aysan waxba ku tarin sidaan ogsoonahay dhalintu waxaa inta badan soo marto 3-20 wax la yiraahdo 20ka koowaad waxay ku martaa caruurnimo waxbarasho socod adiga ilmanimo ay ku qaadataa 20ka koowaad meesha lagu kala tagay iyo meesha la isku dhaafay waxa weeyaan waa 20ka dhexe 20ka dhexe kaga bilaabanaysa 21 marka jirtid ilaa 40 inta u dhaxayda waa xilliga ugu hardanka badan waa xilliga aad qof walba maanta lagu kala tagay wala kala tagay orodna ma meesha la dhahay xilligaasi haddii aad waqtiga ku lumisid waxaana macno lahayn balwad ha noqoto balwada kaliya ma ahan mid la cuno qaadka ama sigaarka kaliya ma ahan balwad waxaana ka kartaa geemamka la ciyaaraya waxyaalaha qamaarka waxyaalaha balwad waxa la yiraahdaa qofku wax soo qabanayo markuu isticmaalo haddaba waqtiga ay ka faa'iideyso time baad haysataa ha u joojinin xirfad walba baran kartid baro ganacsi walba furan kartid furo waxba ha ka shakinin waxaad ogaataa hadda dad ka baqatid oo hadda aad ka shakaysid biri waxaad la gaari doonaa xilli ay dantu kugu kalifteen qabad oo markaasna aadan awoodin runtaa waxay tahay dadyogeena Soomaaliyeed inta badan waa dad iska mid ah dunidu waxay u kala baxdaa wax la yiraahdo high iyo normal iyo low inta badan high-geenu waa